koonfur galbeed markii la yiraahdo Soomaaliya laba qolaad degto Jareer iyo dad kale oo aan inta aan ka sheegayn waxay yihiin waayo hadii waxay yihiin aan sheego aqoon aan u lahaanaya waxaan dhamaan halkan ka salaamayaa suldaamada sharafta leh malaaqyada nabadoonnada ugaasiyada culimaa diinka siyaasiyiinta gudoomiyada kala duwan ee halkan ka soo qayb galay salaan mar labaad aan idinku celinayo weeyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib maanta waxaan halkan isugu nimaadnay inaan wax yar tafatir ama muxuu ahaa falaqeyn yar aan ka bixiyo waxaan halkan isugu nimaadnay sida boorka aad ugu jeedaan ba xafladda caleemasaarka gudoomiyaha golaha dhaqanka koonfur galbeed ee Jareer koonfur galbeed markii la yiraahdo Soomaaliya laba qolaad degto Jareer iyo dad kale oo aan inta aan ka sheegayn waxay yihiin waayo hadii waxay yihiin aan sheego aqoon aan u lahaanaya koonfur galbeed marka aan leenahay anagu Jareer aan ka hadlaynaa Jareer aan ka matalaynaa Jareer aan u dhawaaqaynaa xafladan waxaan isugu nimaadnay golihii deegaanada ama dhaqankii ama dadkii joogay ama Jareertii ku nooleed koonfur galbeed oo duubatay ama sameysatay gudoomiye ayaga markaasi matala waa golaha dhaqanka dhammaan wixii golo dhaqan oo dhan oo Jareer ah oo beela ah oo halkaasi dega ayuu ka matalayaa qofkan meesha lagu doortay waxaan halkaasi lagu doortay Suldaan Muuse Suldaan Khaliif oo aad idinku wada taqaanaan oo howlkar ah hawshan yaqaana marka waxaan codsi ahaan sharaxadeeda aan ku soo darayaa suldaamada kalena sida shalay iyo darad aan ugu codsaday aad ay tahay in ay la shaqeeyaan suldaanka iyo sidii horumar beelahan loogu keeni lahaa qowmiyadda Jareer weyne maanta way dhaqaaqday gudoomiyaha ay sameysatay nabadoonnay leedahay dhaqan ay leedahay odayaal kala duwan ay leedahay siyaasiyiin kala duwan ay leedahay just maanta waxaan u baahanahay qof nahaga oo na dhaqaajiya qofkii nahagi lahaa ee salaadiinta suldaan walbaba beelo suldaan u yahay laakiin suldaanka meeshan aan ku caleema saareyno wuxuu suldaan u yahay dhammaan salaadiinta dhaqanka ee Jareer weyne oo suldaan u yahay marka waxaan mar koowaad codsanaynaa ama aan aniga codsanayaa shalay meeshii aad dhaqanka aad dhigteen inaadan dhigina maanta waxay u baahan tahay tii shalay la soo dhaafay in la saxo tan biri soo socotana aad dhaxal ugu reebtaan ciyaalkiina iyo dhalinyarada soo baxayso annagu maanta waxaan u baahannahay annagu idinka idin eedimayno odayaasha suldaamada hadda talada haayo odayaasha Jareer ama eedayno laakiin maanta yaan idin eedin annaguna biri ilmaheena si eedan noo eedin dhaqan wanaagsan la imaada hoggaan suuban sameeysta hoggaan waa sameeysateen hoggaanna kala dambeeyay lahaada dhaqan wanaagsan lahaada as-sam'u wad-daa'a nabiga kaleey salaatu wasalaam markii ugu dambeysay wasiyadiisa iyo dardaanadiisa waxa kamid ahaa as-sam'u wad-daa'a in lees maqlo ninka gudoomiyaha in la maqlo ninka suldaanka in la maqlo ninka nabadoonka in la maqlo taladu soo jeedinayo ha xumaata ha samaato horta ha la maqlo markii la maqlo kadib go'aan ha laga gaaro marka halkaan waxaan iskugu nimaadnay annaga beelaha Jareer ama qowmiyadda Jareer weyne ee degta Soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed hadda meeshan waxa loo soo qaaday waxay tahay duubkii koonfur galbeeda midoobay duubka Hirshabeelle iyo deegaanadaasna waa ka rabnaa inay ayaguna soo midoobaan wada shaqeyn buuxdana markaas la helo marka halkaan waxaan uga hadli doonaa caleemasaarka iyo qaabkii hore loo sii wadi lahaa maxaa nidaamkan oo dhaqaaqay in nidaamka hirgalay sidii loo sii horwadi lahaa Suldaan Muuse loola shaqeyn lahaa Suldaan Muuse meelaha xirxiran lagu furan lahaa aan maanta u joognaa suldaankana hal la dhiirigeliyo garabkiisana hal la noqdo xafladan waa inoo furan tahay kullee waxa xiriiriyaha dadku ku soo dhaweyn doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Jareer wuu israacay hamidoobo as-sam'u wad-daa'a ha iska helo ismaqal la iska helo hay-adda MCAN oo ka duulaysa khataraha ka dhalan kara El Niño waxay dadka degan jiinka webiga xeebaha iyo dhulka hooseeya uga digaysaa roobab duufaano wata iyo daadad xooggan oo ka dhalan kara El Niño dadawgaasi aan kor ku soo sheegnay waxaa la farayaa kow inay ka fogaadaan dhulka hooseeya oo aysan deegaansan haddii uu deegaan u yahayna ay ka guuraan inta aysan iman khatarta El Niño labo dadka degan jiinka webiga waxaa la farayaa inay iska carab buuxiyaan goobaha webiga uu ka jilcan yahay ama sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku wargeliyaan maamulka awoodda u leh si looga hortago fatahaad uu webiga sameeyo saddex dadka degan dhulka xeebaha waxaa la farayaa inay ka fogaadaan agagaarka xeebaha carruurtana ka celiyaan
inay ku dabaashaan xeebaha. 4 dadka caba biyaha webiga iyo xareedda roobka waxaa la farayaa inay iska karkariyaan biyaha ka hor intaysan cabin. muwaadin waxay hay'adda MCN Marginalized Communities Advocacy Network ku xusuusinaysaa inaad dayalsan fariimaha looga digayo khataraha El Niño, waxayna kaa codsanaysaa inaad gaarsiiso dadka intiisa kale si ay u yaraato saamaynta El Niño.